السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena kaasoo guud ahaan ama gebi ahaanba dulmari doona, ka faalloon doona, wax ka taataaban doona dhacdadii ka dhacday shirweynihii 37aad ee midowda Afrika. shirweynahaasoo isugu yimaadaan had iyo jeer madaxda ugu sarreysa dowladaha midowda Afrika oo ah heer madaxtooyo madaxweyneyaala. saas awgeedna uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uga qayb galay shirweynahaas isaga. arrinta ugu horeysa ama nuxurka ugu weyn loogu talagalayna shirweynahaas isaga qabsoomidiisa ay ahayd in lagaga hadlo waxbarashada Afrika iyo jiilasha ama facyowga Afrika ee soo socda iyo sidii loo gaarsiin lahaa mustaqbal iyo aayatiin wacan. intaasuna ay weheliso sidii loola saanqaadi lahaa ama loola dhaqmi lahaa iyo wixii iskaashiga ku saabsan dowladaha lagu magacaabo G20 gruubka barwaaqa sooranta. balse waxaad moodaa shirkaas isaga ah oo laga filayay lagana sugayay inuu noqdo shir xubnaha midowda Afrika ka tirsan ee isugu imanaya ay kaga midoobaan istiraatiijiyadaas iyada ah ee tilmaaman iyo ka midho dhalinteeda, balse uu noqday inuu yahay shir micnihii shirqool siyaasadeed, iyadoo ay dhacday laba madaxweyne oo ka mida madaxdii shirkaas kasoo qayb geli lahayd oo kala ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle jabuuti, in ay kala kulmeen run ahaantii arrin brotokool xumo ah qabsoomidii shirkaas isaga ah. ujeeddada koowaad weynna ee laga lahaa arrinkaas isadaga ah ay ahayd mid ku socota madaxweyne xasan sheekh maxamuud, balse ay noqotay arrin la soo daristay madaxweyne ismaaciil cumar geelle laftiisa oo goobjoog u ahaa, isla markaasna uu isku dayay inuu kaalintiisa ka qaato iyo fududaynta hawshaas iyo si looga caaganaado isku dhaca, balse ee ugu dambeyntii isagii laftiisii ay saameysay. guud ahaanna uu ka xumaaday mowqifkaas isaga ah ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la kulmay, iyagoo aag isu dhow ku wada sugnaa oo ahaa hoteelkii lagu soo dhoweeyey madaxdaas iyaga ah iyo qaar kale oo badan. muuqaalka uu la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud gaar ahaan wuxuu ahaa muuqaal brotokool xumo ah oo arrinkii anshaxa ee u dhignaa ururka midowda Afrika lagu xadgudbay oo la jabiyey. arrinkaasuna uu ka yimi ama uu ka dhacay xukuumadda Itoobiya. marka loo fiirsadona
qaabka wax u dhaceen laga bilaabo dhacdadii koowaad oo ahayd isku dhicii soo bixii uu ka soo baxayay hoteelkiisa oo la soo galbin lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo mar labaad dhacdadii labaad oo ah soo geliddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo si wada jir ah uu soo gelayay xaruntii shirka ee African Union ama midowga Africa taasoo ay labada goorba dhacdooyinkaas ay xambaarsanaayeen muuqaallo ka baxsan anshaxa iyo borotokoolka intaasna ay dheer tahay in ay gashay nabadgelyadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud xaalad halis ah iyadoo ilaaladiisii iyo ilaaladii Itoobiyaanka ah isku dhici gaadheen arrinkaas isaga ah daawadan looma nisbayn karo inuu yahay arrin macnihii dhank nuqsaantiisu ay ku kooban tahay ama ay ku sugan tahay borotokool xumada balse wuxuu muujinayaa in arrinkaasu ahaa mid kama ah oo si kasta u dhacay ujeeddaduna ahayd in la gilgilo madaxweyne xasan sheekh maxamuud balse marka loo fiirsado nuxurka iyo gunaanadkii arrinkaasu uu yahay run ahaantii xaalad xadgudub oo ku dhacday si kamaa ula kac ah oo salka ku haysa cadhada ee dowladda Itoobiya ama xukuumadda Itoobiya ka qabto diblomaasiyadda Soomaaliyeed oo hor istaagtay damacii iyo xadgudubkii ka dhanka ahaa Soomaaliya oo ka soo jeeday Itoobiya muddadii 2 bilood ee ugu dambeysay laga bilaabo hordhicii bishii janaayadii tagay ilaa iyo maanta ujeeddadu ay tahay inay dowladda Itoobiya culays siyaasadeed iyo mid nabadgelyaba ay ku saarayso Soomaaliya arrinkiina uu hadda soo gaadhay madax meel ka sarreysa oo la taabto aanu jirin in macnihii khalkhal la geliyo nabadgelyadii oo halis la geliyo nabadgelyadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud loo baahan yahay in arrinkaas isaga ay Soomaaliya digniin kama dambaysa ku qaadato oo salka ku haysa in xaalad iskaash iyo xaalad diblomaasiyadeed afgarad aanu dhex mari karin marnaba Soomaaliya iyo Itoobiya halkaasna boorka lagaga jafo dhammaan kaadhadhka siyaasadeed nabadgelyo gaadiid dhaqaale ee Soomaaliya jafan karto oo ciyaari karto iyadoo aan arrimahaas qaarkood ku soo qaadanay barnaamijyadii boggeennan isaga ah ama janaalkeennan isaga ah ee la soo dhaafay loona baahan yahay inay Soomaaliya ka sanqadhiso run ahaantii dacwadeedana gaadhsiiso meel kasta xarun kasta iyo galo kasta oo diblomaasiyadeed oo siyaasadeed isla mar ahaantaasna la garawsiiyo oo la gaadhsiiyo ururka midowga Afrika xaalad ashkato kama dambaysa oo ah inaan lagu hakin karin inaan lagu sugi karin inaan lagu aamini karin dowladda Itoobiya xarunta
midowda africa inaan lagu halayn karin mar hadday muujisay dhaqan ah inay xaruntaas iyada ah ee dowladaha afrikaanka oo soomaaliya xubin ka tahay u adeegsanayso danaheeda gaarka ah ee lama horaan tahay in halkaasay soo gasho ay timaado xaalad ka fiirsasho lagana guuriyo laga weeciyo laga bedelo xarunta midowda africa magaalo madaxda Ethiopia ee Addis Ababa. daawada dhegayste waa anigoo ah Khalid Xasan Yuusuf intaan ku kulmi doono barnaamij kale iga guddooma salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.